annaga markaan ciidan nahay wadka waxaa noo si dheer qoriga inaan wadano sababtoo dagaal aan ku jirnaa maanta haddii dagaal la aado rag way dhimanayaan haddii dagaal dhaco masti inay rag dhintaan sababtoo meesha laguma sheekaysanayo marka maadaama aan wadka uga dhownahay dadka kale waxaan rabnaa inaan ilaahay uga sii dhawaano inaguna oo aan salaadeena tukano oo ilaahay ku xirnaano oo mar walba ducaysano nimanka xunxunka ana waxa ay dadka ugu sheekanayaan inaad u rumayn haddaa salaadii tukanin soonkii soomin ilaahay aad ka cabsanaynin waxyaabaha xunxunka daraagiska iska isticmaalaysid waxyaabaha ay sheegi baa run u noqonaya yani waxyaabaha ay leeyihiin gaalaan la dagaalamaynaaba iyaga u rumaynaysaa laakiin haddaad intiiba soo buuxisid oo ilaahay wuxuu kaa rabo dhan aad buuxisid iyagaa gaalo noqonaya adiguna waxaad noqonaysaa qofkii jihaaday marka waxaan rabnaa nimayow cabsida ilahay mar walba aan ku taagnaano oo niyadiina meel kasto aad joogto inaad ilahay ka cabsato isku day weliba salaada iyo soonka iyo aada loogu dadaalo ciidamada wax badan baa mararka qaar ka qaldama rag badan oo ka mid a marka taas iyana dhaysan maanta maalin aan baa nin walba la xisaabinaya qabriga markaad gasho saaxiibada dhan way ka hadhi ehelkaagu wuu ka hadhi dhaqaalahaagu wuu ka hadhi wax kastaa ka hadhaya marka maalinkaad godka gasho adiga iyo camalkaagii hore aad tegaysaa marka waxaan ka rabaa nin walba ilaahay ka baq meel walba joog intaa kadib waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidannimadu waa la soo galaa lagama baxo askarigu maalinku ciidanka soo qoranayo lama qasbi karo qasab intii lagu soo qaado dawladdu qori kuma dhibi karto xaq waxaad u leedahay inaad tiraado aniga waxaan diyaar u iga daayay laakiin haddaad soo qorato ikhtiyaar ma lihid meel kasta gal oo lagu soo qabanayaa xabsi inay dawladdu ku nacdo ma nici karto adigu dadka waxaa laga yaabaa in ciidanka intay qortaan inay iskaga baxaan ay rabaan sharciga ciidanka marka aad wax galayso sharcigaa la bartaa sharciyada la bartaa marka hore ciidanka soo galayso iska akhri haddaad ku geli karto ood intaasoo shuruud buuxin karta gal laakiin marna waan soo galaa marna waan ka bixi ciidanka mid maaha waxaan rabnaa marka haddii aadan ka baxaynin oo wixii saad usoo gashay uu yahay shar iyo khayr waxaad kala kulantaba waxaa qasaba inaad barato waxyaabaa lagaaga baahan yahay askari markaad tahay waxbaa lagaaga baahan yahay waxaa lagaaga baahan yahay waa inaad baratid saytan oo in ula imaatid laakiin haddaad sharciga ciidanka baranin haddii xataa meel lagu diro waa lagu xadgudbaad dhihi war maxaad meeshan u imaatay waa in lagu amro waa in meel lagu diro waa in shaqo lagu diro waa inaadan nasanin waa inaadan yani tem aada faamilkaa ugu helin marka waxaa lagaa rabaa inaad shuruucda ciidanka baratid aadna ku dhaqantid waxaa kale shaqada ciidanka dadka laba qayb u kala baxaan markay soo galaan qaybna wax way maangamaagaan way warwareegaan kaasoo kale way ku adagta wardareeska soo xidha iyo wargaadhiga fura shaqaan aad midna wuu israaciyaa oo wuu fahmaa oo shaqo macaan oo qabooba u noqotaa waxaad adigu isku adkaan kugu adkaan maayo waxaan rabnaa shaqada ciidanimaha loo jajabnaado shaqada ciidanimaha loo jajabnaado maadaama adiga usoo bareerdhay yani lama rabo inaad lugna kula jirto ciidanka lugna aad banaanka la joogtid qumaata loo wada galaa yani qumaati inaad wada geshid shuruucdeeda baratid aad ku dhaqantid waxaa lagaa rabaa marka waxaa jira adiga shaksiyan ku anfacaya marka tababarka ciidanka waa inaad baratid tababarka ciidankana ma dhamaado ninka maanta jananka ah ee ciidanka laga yaabo 30 sano 40 sano inuu ku jiray ee odayga ah maanta wuxuu u baahan yahay weli khibrad baa usii dhiman tababar baa usii dhiman koorsooyin uu leeyahay baa jiro inuu qaato loo baahan yahay waxaa la rabaa maskaxdaada inay ku jirto inaad ciidanka baratid laakiin qori baan qaadanaa ciidanka askariga qori baan qaadanaa boosha qaata askari aan ma jirto waxaa lagaa rabaa inaad cadowgaaga sidaa u dili lahayd baratid adigana saa u badbaadi lahayd baratid dadka shacabka saa u badbaadin lahayd baratid waxaana wato waa dilaa qorigan aa wadano waa dilaa meel aan loogu talagelin inaad la aado looguma talagelin saaxiibada inaad ka ilaalisaa la rabaa shacabka inaad ka ilaalisaa la rabaa adigu inaad iska ilaalisaa la rabaa cadowga bas inaad ku dishaa lagaa rabaa waxaan rabnaa marka cadowgaaga haddaad nin tababaranta oo diyaarsan tahay cadowgaaga mar walba adaa ka guuleysanaya laakiin haddaanan tababarayn mar walba isaga kaa guuleysanaya tababarka marka la idin baray ha iloobina waxyaabaha ugu muhiimsan waa taatikooyinka iyo waxyaabaha la yidhaha shiishku muhim waayo dadka qaar nin inta u taan kuma dhufan karaan xabad cadowgaagu markuu ku arkay isagoo intuu kuusoo maray adoo xabad ku dhufan karin oo ama dhaafinayo ama gees ka marinaya adigina ma fadhin karto waxaad leedahay ninku wuu ku fuulay wuu ku qabanayaa asagina wuxuu ku arkaya inaad eber tahay laakiin cadowga meeshaad ka artaba haddaad ku dishid kuwa kale xataa way sii cararayaan shiishku waxyaabaha la barto wey wax lagu dhasho maaha qorigaas aad u qabanaysid sidaa xabadda u ridaysid yani hadday fadhi tahay hadday jiif tahay hadday taagni tahay wixii lagu baray waxaa laga rabaa nimayo inaad weeleysaan inaad ku celcelisaa lagaa rabaa
inay maskaxdaada iyo niyadaada mar walba ay taas ku taagnantahay laga rabaa taatikooyinka qaabka qoriga loo wata qayb ka tahay qaabka qoriga loo wata hadda qoriga garabka iska saaran yahay oo qoriga afkiisa xagga isaga sii jeedo cid walba ku diri karta magaalada dhax socoto qoriga saasu ka qaabastooda ku qatay maxaa sameyn kartaa wax isma u dhaqaajin kartidba qorigiina uu ka hayaa adna bastooda dhahor ka qabtay wuuna ku dilin qorigiina oo sii deys waxaa la rabaa qorigaaga goob aan safe ahayn marka joogto iyo goob safe ah qaab loo qabsaa jirto waana la baray waa inuu san kabta ka digin waa inaa qorigaaga ma walba aad xukuntid in qof kale xukumo ma especially waliba idinka ciidan khaasa oo muraayad ciidamada aatiin waxaa la idinka rabaa dadaal kale oo gooniya waan ognahay wax kastoo la sameeyo dhib buu leeyahay dhibka haddaad ku adkaysanin meesha waxaa ka imaanaya dulaal baa ka imaanaya dulaalkaasina aad ku dhibaateynaya waxaa la ka rabaa inaad daa'imtaan tababarna waa ku celcelin maanta haddii intii tababarka saa la idinku qalajibay aad dhamaas aad laabataan oo aydan caawa ku celino oo aydan berri ku celino oo aydan maskaxdiina ku haynin oo markaasna waa idin ilowdaba aad ku celin maalinka dambe isbuuc kadib kii aan weli waxa baran oo kale aan la mid noqonin kii aan weli waxa baran oo kale aan la mid noqonin waxaan rabnaa inaad ku celcelisiin maskaxdiina aad ku haysiin qaabkii loo soconay qaabkii loo fadhiisanay qaabkii wax loo shiishay weligaa ha iloobin gacanta qoriga lagu qabanayay taqasnada lagu qabanayay waxaan oo dhan waxaa la rabaa nidaam systematic inaad ka dhigtid waa inaad isku day adi macallin noqotid saaxiibadaada kale waa inaad tiraadno saaxiibow saama qurux badno dhibkana kaaga imaan waxaan samee waxaa la ka rabaa taas samee ciidanka sababta marka ugu horeysa la soo qoro madaxa looga xiro kulliyad loo geliyo dariiqada arti loo galgalsiiyo dhibka arti u marta maxay tahay waa la leeyahay waxaa la rabaa waxan inuu qofku fahmaa la rabaa haddii ugu horeystaba saa ciidanka marka uu soo birto qori waa lagu dhibi karaa shaqana waa lagu dhibi karaa intuu lagu geliyo laakiin askarina ma noqonayso nin qori la isii dhibaad noqonaysaa shuruucdii ciidankana aan la barin sababta intaasoo process lagu marinayo waa inaad ciidanka iyo wuxuu yahay baratid aadna ku dhaqantid marka waxaa laga rabaa nimayo tababarna waxaad ugu jeclaata ha noqdo mar walba tababaraa jira haddii lagu dhaho gacanta taago aniga laygu dara dheh waxbaad faa'iidaysaa sababtoo shaqanaad ka mid tahay waxbaad soo kororsanaysaa tababarka weligin ogaada tababarku waxbuu kuu tarayaa laakiin cajiska iyo magaalo warwareega iyo rag badanoo kamid in la waawaayo oo maalmo googooyaan baa laga yaabaa maalin haddaad goyso waxaa arkaysaa ciidankii oo waxaadan aqoonin soo bartay lama qabsan kartidba marka waxaan rabnaa arrintaa hala joogteeyo maalinkaad jaanis hesho ood fursad hesho tababar haddiiba lagu dhaho tababar baa jira qofka koowaad noqon aduu lafahaaga ku anfacaya lafahaaga adoo keliya aan ciidan ahayn oo hataa ciidamada ka baxay adoo qori wataa jacdo kusoo weeraraan alaabtaada ad u adeegsanaysaa si cadowgaa isaga dhicis laakiin haddaan lahayn noloshay kugu qabanayaan marka ciidanimadu tababarku waa wax adiga ku raacayo wey waxa ugu muhiimsan dawladda difaaca marka laga soo laabo lafahaaga ku difaacaysaa marka nimayo taasna yaa la iloobin waa midda ugu muhiimsan